diyaarinay dagaalaan rabnaa hana la fasaxo talo ma ku filan yihiin dowladda Iiraan qudheeda caawa qalab cusub iyo technology ay adeegsay oo ay leedahay aniga ayaa maamulaya marinka Hormuz wixii hadda ka dambeeyana maraakiibta waxay soo raaci karaan tilmaamahana soo bandhigayno marka gobolka bariga dhexe innahu bay samaysanaysaa in la difaacay rabtaa inna weerar ay ku jirtaa inna iyada wax weeraraysa xagee u socdaa gobolkaasi oo ku faaqiidaya soo dhawaada وعبد العزيز برو iyo channelka عبد العزيز برو aan ku faaqido wararka caalamka iyo taxliilinta diblomaasiyadda ayaad la socotaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin Dreamhan gantaalkan caawa telefishin kasta oo shido wakaalad kasta oo akhriso iyo goob kasta oo wax lagu falanqeynayo isaga ayaa la hadal hayaa kadib markii carwada bandhiga hubka ee Saaha 26 ee iminka ka soconaysa magaalada Istanbul maanta ay ku soo bandhigtay dawladda Turkiga horta waxa la yaabay gantaalka dhirarkiisa haweenaygiisa xajmigiisa intuu leeg yahay cid kasta markay aragto horta dib bay u istaagtay waxay leedahay war farsamada intaan la eg dawladda Turkigu ma hayeen oo warshadeeda difaaca militarigu awoodan ma lahaayeen waxaan eegayaa haddaba xog laga qoray gantaalkan oo uu qoray telefishinka TRT ee dawladda Turkiga ay leedahay warbixintaasi waxay leedahay dawladda Turkiga ayaa si rasmi ah markii ugu horeysay u soo bandhigtay gantaal cusub oo la sheegay baa la yiri in qaaradaha uu isaga gudbo ee ah ICBM oo loogu magac daray baa la yiri Yildirimhan intii uu socday bandhigan caalamiga ah ee warshadaha difaaca hawada sare ee dawladda Turkiga ee Saaha 26 ee ka soconaya magaalada Istanbul soo bandhigista gantaalkan waxa loo arkaa tallaabo weyn oo muujinaysa kobaca degdega ah ee awoodda difaaca iyo weerarka fog ee Ankara iminka ay leedahay iyadoo Turkiga uu ballaarinayo barnaamijyadiisa tiknoolajiyada iyo waliba madax banaanidiisa difaaca marka waxaba muuqanaya sida qobrada qaar ay tilmaamayaan ordagan in raadkii Uthmaaniyiinta waxa lagu soo celin karo oo kaliya u arko in la ishubeeyo nin qoodkiisana soo saarta kaashankiisana samaysta warankiisana isaga tunto oo baakiliya noolaan kara qarnigan sidaas ayuu u arkay marka talada wadanka markii uu la wareegay waxaba uu u jihaystay baa la leeyahay kasukow dhaqaalaha wadankaasi inuu hawada galiyay in dhinaca militarigana uu wadankaasi ka dhisay haddaba maxaa laga yaqaanaa astaamaha gantaalkan Yildirimhan la yiraahdo warar hordhaca ayaa sheegaya in gantaalka Yildirimhan uu leeyahay awood farsamo oo aad u sareysa aqoonta la galiyay mid sahlan maaha isla markaana wuxuu ka mid yahay baa la yiri gantaalada nidaamyada difaaca casriga ee Turkiga ilaa hadda uu sameeyay noocan gantaalkan warta waxa la yiraahdaa kan qaaradaha isaga gudba waa international intercontinental ballistic missile ayaa la yiraahdaa magaca la siiyay waxa la yiraahdaa Yildirimhan waxa lagu tilmaamayaa gantaalaha guuxooda ka dheereynaya saacadii gantaalkan waxa uu jarayaa qiyaasaad gaaraya 30,000 oo kilomitir buu saacadii soconaya 30 kilomitir ma waa 30,000 oo kilomitir ayuu gantaalkan gaaraya oo dhaafaya saacadiiba masaafada uu gaaraya waxa lagu tilmaamay 6,000 oo kilomitir inay tahay ama hadii dhinaca mileska lagu fiiriyo waa 3,728 mile ayuu gaaraya waxa uu leeyahay 4 inji oo ama 4 motor oo dhaqaajiya sidoo kalena waxa uu leeyahay qalab laga hago waxa sameysay baa la yiri ama hormariya xarunta cilmi baarista iyo horumarinta warshadaha difaaca qaranka ee wadanka Turkiga gantaalkan waxa loo arkaa mid mucjiso ah marka la fiiriyo dawladda Turkiga sida uu soo bandhigtay soo saarista gantaalka Yildirimhan ayaa waxa uu muujinayaa baa la yiri in Turkiga uu u gudbayo heerka sare ee awoodda istiraatiijiga ee difaaca maadaama gantaalkan cusubi uu awood u leeyahay baa la yiri in uu gaaro bartilmaameedyo aad u fog oo qiyaastii gaaraya 6,000 oo kilomitir oo masaafo ahaan waxa lagu garaaci karaa marka Turkiga laga tuuro qaybo kamid ah Yurub
bariga oo dhaxa oo dhan ayuu gantaalkan garaaci karaa haddii Israa'iil noqon lahayd iyo haddii cid kale noqon lahayd Turkiga gantaalkan waa ku garaaci karaa marka awoodiisana adaaba arkaya shaashada uga jeeda waa gantaal awoodiisa aad u badan tahay qaybo kamid ah qaaradda Aasiya ayaa lagu garaacayaa gantaalkan sidoo kale iska dhaaf gantaalkan haddii meel kamid ah Turkiga laga rido waqooyiga qaaradda Afrika meel kamid ah ayaa lagu bartilmaameedsan karaa marka falanqeeyaashu waxa ay tilmaamayaan in tani ay tahay mid sare u qaadaysa awoodda difaaca Turkiga iyo booskiisa gantaalaha baalistiga marka waa fariin ku socota nidaamka Israa'iil oo isku arkaysa boqorka hogaaminta militariga ee qaaradda ama aanidada bariga dhexe carwada lagu soo bandhigaya ayaa sidoo kale shaqaraar ahayd oo waxa ka soo qayb galay in ka badan 120 dal gantaalka marka la soo bandhigayo qubara joogta iyo dad istiraatiijistayaal ah iyo dad fahmaya waxa la yiraahdo geofadaiga ama gantaalahan adag ee la tuurayo 120 wadan ayaa taagnaa goobta waxa goobta sidoo kale jooga 1700 oo shirkadood oo ka shaqeeya waxyaabaha difaaca hawada iyo weerarada loo adeegsado boqolaal wufuud oo military iyo ganacsi ah ayaa goobta joogay oo gantaalka Turkiga markay soo bandhigeen waxa ka dhacday hal isfeeriyo in ka badan 200,000 oo qofna goobta waa yimaadeen maanta gantaalkaasi lagu soo bandhigay bandhiga waxa sidoo kale lagu soo bandhigay qalab kale oo aad u culus oo dawladda Turkiga ay leedahay lagama sheekayn karo waxa ay maanta keeneen tusaale kale waxay maanta soo bandhigeen diyaaradda la yiraahdo K2 kamikaze oo ah diyaarad duuliyalaan socota waxa sidoo kale la soo bandhigay diyaarad la yiraahdo Misraag oo iyana duuliyalaan socoto dhamaantood qalabka AI-ga laga hagayo diyaaradan kamikaze oo kale marka fiiriyo K2 la yiraahdo waxa ay kamid tahay baa la yiri droneska aadka uga heerka sareeya si fudud loo nashqadeeyay drone-kan waxa ay xamul ahaan qaadaysaa 200 kg ay qaadaysaa halka diyaaradan waqti kooban runtii waa duuli karaysa oo waxa loogu talagalay diyaaradan inay noqoto kuwa ismidaamiya diyaarada la yiraahdo Misraag iyana waxay duuli karaysaa 1 kilomitir tana waa mucjiso kale ah waxaana ay qaadi karaysaa 40 kg oo qaraxa ayaa la saari karaa marka dawladda Turkiga hadda waxay u muuqataa inay aad runtii awoodeeda kor uga qaadayso qabanqaabiyaasha bandhiga ayaa filaya in sanadkan heshiisyada dhoofinta warshada difaaca ee wadanka Turkiga ay gaaraan baa la yiri 2.6 bilyan oo dollar ama in ay sanadkii ay gaari karayso baa la yiri 8 bilyan oo dollarka Mareykanka ayuu rabaa Turkiga in uu ka soo xareeyo qiimaha lacagaha shirkadan ay soo xareynayso Turkiga marka waxa leeyahay madaxweyne Erdogan halkan waxa uga soo xaroonaya sumcad aad u weyn marka la fiiriyo qaabka warshadiisu ay u korayaan waayahay aan ka soo celiyo Turkiga marka wax laga sheekan karo ma Erdogan waa nin tashtay dadkiisana wax baray adduunkana la tartamaya dadka la taageero maaha intaas baan uga gudbayaa haddii aan fiiriyo dhinaca Israa'iilna ciidamada militariga Israa'iil ayaa fariin u diray dhigooda wadanka Mareykanku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in tallaabo laga qaado dawladda Iran ujeedadeedu ma aha xabad joojinta inay noogu isticmaasho inay dib isku abaabusho waxa la joogaa xilliga aan tallaabo qaadi lahayn ila wareedyo ay soo xigteen baa la yiri warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka ay fariin rasmi ah u dirtay Mareykanka taas oo muujinaysa in hoggaanka amniga iyo militarigu ay si xoogan u taageerayaan in dib loo bilaabo weerarada ka dhanka dawladda Iran sida ay wararku tilmaamayaan madaxa ciidamada iyo hay'adda sirdoonka Israa'iil waxay aaminsan yihiin in wada hadallada diblomaasiyadeed ee lala wada Iran aanay keenin baa la yiri natiijo wax ku ool ah isla markaana ay Tehran u adeegsanayso wada hadallada sidii xeelad waqti lagu kasbado oo kale warbixintu waxa ay sheegaysaa in Israa'iil ay doonayso inay ka faa'iideysato xiisadda sii kordhaysa ee ka aloosan gobolka gacanka Bershiya gaar ahaan xaaladda cakiran ee Mareykanka iyo Iran u dhaxaysa Hormuz si loo abuuro waa la yiri jawi siyaasadeed oo ku saleysan in dib loo bilaabo howlgallada military oo ka dhana bartilmaameedyada gudaha ee nidaamkaasi
ilaha military waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen in saraakiil sare oo ka tirsan Israel iyo Mareykanka ay bishii April yeesheen kulamo istiraatiiji ah kuwaasi oo ay diyaariyeen baaliri bandhig cusub oo bartilmaameedyo ah oo la doonayo in lagu beegsado gudaha Iran haddii baa layidhi xaaladu ay sii qararaato liiska bartilmaameedyada cusub iyo sida la sheegay in diiradda la saari doono kaabayaasha dhaqaalaha tamarta iyo horumarinta warkaasi oo uu ka mid yahay baa layidhi kan shidaalka haddii aan eego dhinaca Iiraanna tallaabooyin degdega oo cusub ayay ku dhaqaaqeen caawa kadib markii ay sameeyeen nidaam elektrooniga oo ay doonayaan inay ku maamulaan maraakiibta isticmaalaysa marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz warbaahinta dawladda gaar ahaan Press TV ayaa sheegay iyagoo xiganaya ilo wareedyo rasmi ah in Iran ay si rasmi ah u bilowday hanaan cusub oo lagu maraya baaliri marinka Hormuz isla markaana ah mid istiraatiiji ah sida ay sheegayaan wararka nidaamka cusub ayaa dhigaya in dhammaan maraakiibta doonaya inay maraan marinka intaanay soo gaarin ka hor ay codsi soo diraan isla markaana ay u soo gudbiyaan dawladda iyo xitaa marka ay ka baxayaanba ila wareedintu waxay intaa ku dareen in maraakiibta loo ogolaado in ay gudbaan ay heli karaan fariin email oo rasmi ah iyagoo ka koobnaan doonta maaliri tilmaamo gaar ah oo la siinayo oo la xiriirta aagaasi iyo waliba meesha ay marayaan marinka Hormuz ayaa hadda ah midka ugu weyn oo ay dhaqdhaqaaqayso culus yahay halka dawladda Mareykankana qoraal ay caawa sii daysay ay ku tilmaantay in ay samaysay baaliri aag ka caagan dagaalada oo ay ilaalinayaan ciidamada badda kuwa cirka iyo waliba kuwa dhulka waliba aagaasi waxa uu ku dhow yahay dawladda Oman sida wararku ay tilmaamayaan isla markaana waxa la leeyahay ma gaari karaan hanjabaadaha dawladda Iran ka soo baxaya dhinaca kale taliska dhexe ee dawladda Mareykanka ayaa caawa sheegay 10 jeer in ay la kulmeen weerar kala duwan oo ka imaanaya dawladda Iran tan iyo markii la joojiyay dagaalka 8 bishii aynu ka soo gudubnay ee April xilligaas oo dawladda Pakistan iyo dhowr dawladood oo kale ay qaadeen tillaabooyin dhexdhexaad ah oo lagu soo afmeerayo colaadaasi si xoogaysanaysa laakiin taliska dhexe ee militariga Mareykanku waxa ay tilmaameen in ay ka qoosteen baaliri dawladda Iran inay dagaal la galaan sabab la xiriira in ay fulinayeen ballamihii caalamka hortiisa ay ku galeen Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in Iran ay qaaday in ka badan 10 weerar oo ka dhana ciidamada Mareykanka tan iyo markii uu dhaqan galay xabad joojintii bishii hore taasi oo muujinaysa si socoshada xiisadda gobolku inkastoo heshiiska xasiloonida uu yahay mid halistiisa leh gudoomiyaha taliska isku dhafka ciidanka Mareykanka General Dan Kane ayaa sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay Washington 8 April laga soo bilaabo ilaa iyo hadda ciidamadeena waxay la kulmeen weerar kala duwan oo ka imaanaya dawladda Iran waxay adeegsadeen booyre gantaalo cruise diyaarado drone iyo sidoo kale doomo dheereeya taasi oo qasabtay baaliri dawladda Mareykanku inay xabad joojinta ilaalisay faafahinta ka soo baxaysa Mareykanku waxay leeyihiin in gacanka Hormuz ay ku xayiran yihiin 22,500 oo badmaax oo doonaya halkaasi inay ka gudbaan waxaana la leeyahay dawladda Iran ayaa gantaalo u adeegsatay qaarkood in ay tillaabooyin ay ku gudbaan ay keeni waayaan qiyaartayna la socotay tabinta qaybtan caawa iyo faaqidaada wararka ee barnaamijka Barrow Showna intaas ayaan ku gabagabaynayaa waa Cabdi